wafdi oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo ku sugan magaalada Saylac gobolka Salal isla markaasna kormeeray mashaariic maamul daadejinta GBLG ayaa shalay kormeer indha-indhayna ku soo sameeyay dhismayaasha laga fulinayo mashaariicahaasi sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay dhismayaal cusub oo isugu jira wadooyin dayactirka xarunta kalluunka ee Saylac madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa kulan la qaatay maamulka iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose degmada Saylac halkaasoo lagaga dhageystay warbixino ku saabsan hanaanka ay u maamulaan mashaariicda maamul daadejinta ee GBL iyadoo mas'uuliyiinta dowladda hoose Saylac ay madaxweyne ku-xigeenka siiyeen warbixin madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maayirka iyo golaha deegaanka ee Saylac uga mahadceliyay waxqabadka ballaaran ay ka fuliyeen degmooyinka hoos yimaada degmada waxaana uu ku ammaanay mas'uuliyadda xilkasnimada leh ee ay u maamuleen madaxweyne ku-xigeenka oo halkaasi ka hadlay ayaa gunaanadkii yidhi waxaan maanta farxad weyn degmadii Saylac ee gobolka Salal oo ahayd degmadii ugu dambeysay oo laga fuliyay mashaariica GBLG sidoo kalena runtii aad u fahantay tababarkii iyo mashruucihii qiimaha lahaa aad baan ugu faraxsanahay isagoo hadalkiisa sii wata madaxweyne ku-xigeenku waxa uu yidhi anigoo degmada kolna magaceeda aan sito kolna iskuulka aan ka galay taariikho kale oo fara badan ayay ii leedahay ilaa maalinkii kala guurku dhacay ee dalka lagu kala yaacay halkan baan joogay maalintaa waxaan aad runtii u hambalyeynayaa maamulka dowladda hoose dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in mashruuca GBLG dhowaan laga soo saari doono warbixin rasmi ah isla markaasna la horgeyn doono golaha wasiirada madaxweyne ku-xigeenka ayaa yidhi annagu marka aanu hadda dhammayno kormeerka insha Allah bisha January waxaanu soo saari doonaa warbixinta rasmiga ee 8 degme GBLG-gu mid walba halka uu maray iyo waxa uu ku fiican yahay si la iskugu daydo oo kuwa hoose ugu daydaan kuwa sare waxaana la gaarsiin doonaa ilaa heer golaha wasiirada la geeyay isbedelada uu ka qabtay dowladaha hoose dalka وعول عبد الرحيم كيسا عول برعاوي فيه قصري مدحتويدا Somaliland مقلده هرقيسا